بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصحاب الشرف طلع مقعي محمد داهر عمر على سيدكم مقعدير وحال كان فدي سؤالنا فرحية حسن دورة فرحية كيف لو يقانو نقيات الشرف طلع وين سلامينا مركو هوري سلام بوحدو ميل كستو جوجتان سوماليدا كل اللي فهمي سؤالك الصومالية كو هذا شو ميل كستو أدونك هتك جوجتان مركو هوري سلام دير ربا الهول دين سومالينا وان دين جعلنا هاي نادينكم وحان filayaa inaad jeceshihiin waxa aan meeshan u soo fariisanay barnaamij yar oo aan jeclaysanay inaan bulshadeena kala hadalno ama aan ku wacyigelino oo wacyigelin ku saabsan asaga dhanba barnaamijkaas wuxuu yahay sida aan la socotaan aqyaarta cudur adduunyada karkariyay oo asagoo kale aan weligiis la arag ayaa adduunyada soo maray ilaa haddana ku rafanayo meel kastana uu gaaray dhibaatada oo cudurku sababay waxaa kamid ah mid nololeed iyo mid dhaqaale iyo mid maskaxiyan intaba uu sababay dadkii barna waa dhinteen dad waa dhaqaalahoodii ku burburay kuwa shaqaalnimadoodii ku burburtay kuwa kale maskaxiyan ay u xanuunsadeen ninkaan wixii ka qaadeen cudurkan saska ay ka qaadeen ayaa ilaa hadda la xanuunsan yihiin dhibaato aad u fara badan aan soo koobi karin ayuu cudurkan sababay ilaa haddana uu jiraa marka aqyaarta sharafta leh si aan u wada badbaadno anaguna u badbaadno bulshada dhan ay u badbaado waxa kaliya oo lagu gaari karaa waa inaan is ilaalino protection ama ka hortagid cudurka laga hortago ayaa markaste muhiim ah cudurkan daawo kala ma lahan wuxuu leeyahay ka hortagid haddii laga hortagi waayana natiijadiisu waxay tahay qofku inuu dhinto dhimasho ayaa daawo maalmahan u ah siiba dadka waaweyn oo da'da ah marka waxaan rabnay aqyaarta sharafta leh si loo badbaado dadka dhan u wada badbaadaan annagana u badbaadino waxay ka bilaabanaysaa qofka shaqsiga markuu asagu isbadbaadiyo ayuu wuxuu badbaadi karaa qofka kale walaalkiisa wuxuu badbaadi karaa bulshada dhan qof kasta shaqsiyan markuu asoo isbadbaasho inta kale oo dhan way wada badbaadaysaa marka waxaa soo baxaysa bulsho wada caafimaad qabto oo is wada badbaadisay ayaa imaanaysa cudurkaana aad iyo aad ayaa looga hortagi karaa haddii la qaato tillaabooyinka hay'adaha caafimaadka ay soo gudbinayaan dowladaha ay soo gudbinayaan laakiin haddii la dhayarsado asaguna wuxuu keeni karaa dhibaato aad u fara badan u keeni karaa waan cawaaqibteedu aad u liidato marka barnaamijkaas ayaan caawa insha Allah aan falfalanqeynayna asxaabta sharafta la soo dhawaada waxaa halkan fadhiyo farxiya iyadana oo iyadana dhinaceeda ka qaadanayso inta badan familada ama dadkeena Soomaalida dadina suuqyada ay aadaan banaanka u baxaan ama soo shaqeeyaan ama hawlo kale ah ogaadeen dadina guriga ay joogaan oo guriga ay ka yagarayaan marka labadaas loo qaybsan yahay kuwii banaanka joogayna waa inay is ilaaliyaan kuwa gudaha ku jirana waa inay is ilaaliyaan markii labadooduba ay is ilaaliyaan ayaa waxaa imaanayso dad wada ilaashan oo wada ka wada hortaga cudurkii oo nadiifa ayaa meesha iskugu imaanaya marka cudurkaasna ma faafayo halka ayuu ku baaba'aya ama ma soo gaaraya farxiya halka ay marka joogto ayadana bil kalmadeeda insha Allah siinaya marka hore asxaabteedaan salaam dhamaantiin meel kasta joogtiin soo dhawaada mar labaad waa farxiyo ayaan intaan xoogaa hawada ka maqlay iska xanuunsaday laakiin alxamdulillah hadda fiicanahay waxa waaye hadaa hooyo tahay oo guriga joogtid oo waxa sheegaya hooyooyinka guri jooga gurigooda joogaan oo ilmahooda iskuul u jiran dugsi u jiran guriga la wada joogo so ilmihii hadees iskuul aadeen dugsi aadeenin waxaa loogu soo fasaxay waxbarashadooda waxa waaye cabsi laga cabsanayo cudurkan inuu faafo because ilmaha meel kasta ka imaanayaan guri kasta ka soo baxeen hal meel isku imaanayaan somaha okay ilmaha hadii guriga joogaan oo guriga ilmaha way ciyaarayaan hada banaanka u fasaxdo orod banaanka soo ciyaara dibkeeda leedahay stairs kameelaha ka qabsanayaan jaranjarada darbiyaasha waxaas dhan way saameyn kartaa way ka qaadi karaan so ilmahaada isku day hooyada ina guriga ku heysatid aysan meel ka aadin xataa meelaha ilmaha lagu ciyaarsiyo hadii ku dhawgiin inaad geen because waxbarashadooda waxa lagu saftaxay inay si qofna aysan arkin ee safe ahaadaan
marka labaad waxaa waaye hadduu qof banaanka kaaga imaado oo kaleeto oo ama qof marti ahaado ama qof adee xaajigaado kale saakaatay hadduu soo laabanayo kale oo maanta dhan banaankuu ku maqnaayo ma ilmaha aabahood waaye laakiin banaankuu ku maqnaayo soo maaha maanta dhan soo markuu imaado watiidho gurigaada markii uu soo garaaco isku day in adi ka furtid haddana adi xiratid ilmaha dhan uusan arkin direct markuu guriga soo galo uu aado musqusha shaawarkiisa qaato dharkiisa wixiisa kulli meel gooni la geli asoo nadiif uuna soo dhex galo oo maanta dhan wax taabanaya hadduu qof shaqeynaya wuxuu qabanaya alaabahaas waxaa laga yaabaa intaasoo qof inay qabtaan soo meeshaas waxaa ka imaan karo wax inay uu kasoo qaadaa laga yaaba soo inuu iska dhaqaa aabahana waxaa waaye markuu asna uu magaalada jiro ama hooyada xataa ama qof kalaala qofkii baxo please wejigaada indhahaada sankaada afkaada inaad gacmahaada ka ilaalisid waa markasta haddaa golofis wadatay haddaada wadan because gacantaada meel kasta ku taabanaysaa waa inaa intaan aada taaban markaa guri imaadin aad iska dhaqdid gacmahaada okay maxay kale ها horta si fiican aan isu gudagulaynaa barnaamijka cudurkaani dadka Soomaalida horta waa cudur dilaa ah waxaan rabnaa u sheegno horena dadka dhan bulshada qaadiday ahaan lahayd dhaqaatiir haday ahaan lahayd madax haday ahaan lahayd dad waxgala ama aan la yaqaano kulli waxa meel kasta laga hadlayo barnaamijkan inuu cudurkan yahay cudur xun ee dilaa ah oo dadka laayo oo aan dadka kala reebin cudurkaani wuxuu dilaa walaalka aabaha hooyada dhakhtarka caruurta waayeelka sheekha ninka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada wax haba yaraatee qola gooniya oo leeyahay ma jirto waayeelka carruur iyo caruurta uma kala soocay maxaa lahaye haba loo kala darnaado marka dambe effectigiisa iyo saameynta qofka uu tagayo laakiin cudurkaani ma yaqaan qof gooniya ma yaqaano muslim baa tahay ma yaqaano gaal baa tahay ma yaqaano waxaana tahay midna ma yaqaano waa madowdaha waa caddahay waa waxaasi meel gooni iska dhigaysaa waa cudur ilaahay baa keenay cudurraduna way jiraan way imaan jireen kulligoodna way jireen mana jirto meel ama quraanka ay ku soo aroortay ama xadiis ay ku soo aroortay oo cid gooniya cudurka lagu talagalay ama meel oo la leeyahay muslimka cudurku ma dhaco haba yaraatee total ma jirto hor Soomaalida inay ogaadaan rabaa dad badan oo Soomaaliya waxa jirto inta badan la soo taagan anagu muslimiin baan nahay cudurkan kuma dhacayo taasi waa hadal qayaali ah waana waxa kaliya u kaalmeynaya cudurku inuu faafo oo meelo fara badan oo sii gaaro oo dadka ku faafo oo bulshada laayo oo dhibaato fara badan oo keeno marka cudurkaani muslim hadaa tahay wuu kugu dhici karaa qaasatan hadaa Soomaali tahay wuu kugu dhici karaa meesha rabto joog wuu kugu dhici karaa dadka hadana Soomaalida qaasatan jooga gudaha Soomaaliya aad iyo aad ay cudurku ugu nugul yihiin maadaama ay xoogaa dhibaatooyin iska jiraan waxa waaye taxadar in la qaato ayaa loo baahan yahay cudurkaani cid kasta ayuu ku dhacaa horta intaas waa in dhigihiina ku dhacda oo aan dhihin anigu dhici maayo iyo waasaan midda labaad oo ku soo xigta waxay tahay inaanan beenaysan hadallada ay dadku idin sheegayaan sida dhaqaatiirta madaxda dalka markaa xukunto dowladaha wacyigelinta iyo waxyaalaha ay soo saarayaan awaamirta soo saarayaan haday sida ay tahay loo qaato waa la wada badbaadaya yaan loo arkin wax been ah oo totaliba ay dowladdu iska sheegayaan ama iyagu ay go'aan iska gaareen yihiin dadka qaar baa ku dhahay waxaasi run maahane waxbaa lagu raasanaya oo dowladaha meelo kale dana kale leeyihiin siyaasad kale lagu dabaqaa ma jirto waxaas cudurkaani waa jiraa ma jirto dowlad ayadu dhibaato fara badan isku soo jiidayso waxay helayso waxa dadka gaaraya iyo waxa dowladnimo soo gaaraya dhibaatada ayaa ka weyn wax kastaba adduunka ugu yaraan intaasoo malaayiin oo shaqo ayaa qasaartay oo dadkii qasaareen adduunyada in waxay ku dhowdahay in dhaqaalaha adduunka oo dhanba oo collapse oo asaga dhan burburo oo meesha ugu halisan oo gaaro marka wax lagu bedelo karaahi oo ka weyn inay jiraan aniga lama ahan waxaad dareemi kartaa marka idaacadaha iyo TV-yada aad fiirsataan iyo warbaahinta sida dadka u leynayo sida America waxa ku dhacay waxa Spain ku dhacay waxa Talyaaniga ku dhacay waxa Ingiriiska ku dhacay waxa China waxa meel kasta ku dhacay cudurkii marka waxaad dareemaysaa inuu yahay cudur jiro oo run ah oo dhibaato fara badan leh in la iska ilaaliyo loo baahan yahay qaasatan haddaan anagu muslimiin nahay
muslimnimada ayaaba keenaysaba waxyaalaha cudurkan hadda ay dowladaha iyo hay'adaha caafimaadku ay sheegayaan in la sameeyo. muslimnimadeena ayaaba hore u sheegaysaba. waxaa ka mid ah in si joogto ah gacmahaada aad saabuun iyo biyo ugu dhaqdo oo isku nadiifiso, nadaafadda aad ka shaqayso, meesha aad degantahay nadaafadeeda ka shaqaysid, hadday guri tahay, hadday goob ganacsi tahay, wax kastaba waa si joogto ah u samaysaa. waxaa kale oo ah social distancing, in la kala fogaado oo inta badan intii la dadaali karo la dadaalo, xoogaa la kala fogaado oo dadkii isku imaashahaas faraha badan laga fogaado. meelaha dadka faraha badan iskugu imaanayaan waa inaadan tegin totaliba. waa in inta cudurkaani ilaahay subxaana watacaala naga qaadayo aad isxadidaan naftaada oo meelaha goobaha maqaayadaha aada fariisan, meelaha masaajidda faraha badan laisku soo baxaayo oo talaawiixda inta badan meelaha qaar lagu tukanayo hadda xilligan ramadaanka, ama jamaacada lasoo wada xaadirayo. cudurro markay jiraan diinteena ayaa ogol in qof walba gurigiisa ku tukado si aan cudurku u faafin, dhibaatadana loo yareeyo. marka waxaasoo dhan inaad ka taxadartaan oo la kala fogaado. waxaa kale oo muhiim ah bahalkan afxirka la yiraahdo waa inaad xirataan, ama mask loo yaqaano. afxirkaas markaad xirato wuxuu kaa ilaalinayo maxay yihiin? wuxuu kaa ilaalinayo waxa waaye candhuufta ama fayraskii qof kale intuu qufacay meesha ku dhacay ee soo baxay dhista xogaa yar soconayo inuusan ku soo gaarin oo afkaadii oo furan uusan dalaq dhigin. waayo cudurka totaliba intuu jirkaada dilaaciyo ma dhex geli karo jirkan kale. wuxuu kaa geli karaa afka, sanka, indhaha, meelahan ayuu iyo dhegaha, meelaha duleelo ee cudurku dadka geli kara waa meelahaas. hadda intaas marka in la ilaaliyo unbaa loola jeedaa. waxaa waaye marka baalka maski la yiraahdo aad iyo aad u qaata. waxaa kale oo muhiimadiisu ay tahay baalkaas gacantaadu inaysan mar kastaba aysan wejigaada taaban. waayo haddii maski ay xiran tahay waxa aad taabanaysaa waa maski iyo afxirkii aad taabanaysaa. marka wejigaadii uu ka daboolan yahay iyo jirkaadii kale ma taabanaysid. hadhow laakiin waxaa qasab ah markaad maskiga iska saaraysid inaad tartiib iskaga bixisid, meel gooniya iska dhigtid, gacmahaadii aad si nadiifa oo taxadar leh aad saabuun iyo biyo ugu dhaqdo. markaa isnadiifiso, wejigaadii nadiifiso, saabuun isaga xataa ku dhaqo iyo waxaad heli karto ku dhaqo. markaad nadiifiso oo nadiif meel iska dhigto waxaad kale kabacdi hawshaada qabso. marka usoo galo khaasatan markii aad adigu tahay qof suuqa aadayo ama banaanka u baxaya ama ha shaqeeyo ama howlo kale un ha u doonto. waxaa dhacayso markaas in aad dad fara badan la kulanto oo jidka dhexdiisa ah. waxaa dhacayso inaad meelaha qaar aad gacantaadu ku dhacdo. waxaa dhacayso shaqada aad ku jirtahay in dad wax isweydaarsataan, meelo darbiyaad taabatid, meelo birara aad taabato, waxuuna aad qabsato. wax fara badanaa dhacayo. waxaa kaloo dhici karo infectionka oo fayraska oo qof meel agtaada ku qufacay, infectionkii weli nool intuu soo duuro jirkaada ku dhegi karo ama oo gacantaada ku dhegi karo, meel uun ku dhici karo oo laga yaabo in dharkaadii iyo jirkaada uu soo xambaaro infection fayraskii. waxaas marka ayaa dhici karta inay dhacaan. marka adiga adoo taxadarayo oo intaas samaynayo oo dadkii ka kala fogaanayo oo dadkii asxaabta ahay ay istaqaaneen intay kaa hor yimaadaan hag adoon siinaynin oo is ilaalinayo, haddana markaad soo laabato oo aad gurigaada timaado oo shaqadaadii iyo howlahaadii aad soo bogato, please waxaan kaaga digayaa inaad inta wareegto aad meelo kala aado. meel kale ha isku aadin, asxaab ha u tegin, qaraabusalaam ha aadin, famil kale ha aadin. ciddaad salaami kartay qaraabusalaam iyo waxaas dhan taleefonka bis ha kugu sinaato. soo bax, gurigaad degantahay imow. adiga haddii nin iska bulaa tahana guriga inta soo baxan musqushaada dheeratu u gal, dharkaada waxaad iska siib iska nadiif. haddii ilmo iyo caruur iyo famil guriga joogaan inaad taxadar dheeri qaadato oo ciyaalkii aysan marka koowaad kugu soo yaacaan dhici karto. waa in plan uu ku yaalaa oo ciyaalka markaad imaanayso aysan inaanis arag ilaa aad musqusha ka gasho, dharkaada iska siibto, adiga aad soo qubaysato, shaabo iyo biyo iyo wax isku soo dardarto, adoo nadiifa aad soo baxdo, dhar kaloo nadiifa guriga ku yaala soo xirato. markaas ayaad familkaadii mid kamid noqon kartaa oo ninka la falgeli kartaa. marka taxadarka intaas la eg inaan qaadano ayaa aad u jeclaalahay.
dhaqaatiir fara badan iyo madax fara badan oo ummadda Soomaalida aad ugu digayo ayaan arkay ayaguna aysan dhig jala qusinaynin intooda badan ama ayba la yaaban yihiin waxaan waxyaalo qayaali u maleeyaan qayaali maaha arrintan waa arrin serious please intaan baabi'i lahayn cudur nagu dhici lahaa dhibaato lahayn anaga dhan agoon iyo habaro iyo walaal la'aan iyo waalid la'aan iyo dad la'aan nagu dhici lahayd awal baan yarayn oo xabadna kala reebtay waxaad samaysaan please waxa la idin sheegayo qaata waxa la idin sheegayo inaad qaataan dhagaha u furtaan isku daya cudurkaani cudur xun oo dilaa ah oo adduunyada kulli waayo hore uu soo maraa dhici karto laakiin sanadahan iyo waayahan dambe qarniyadan aan arag waayo oo aad iyo aad u xun marka walaalahayga Soomaaliyeed oo aan jeclahay intaas waanadaas ayaan jeclaan lahayn inaad qaadataan meel kasta oo aad joogtaan bahalkan iyo afxiraha ama mask face maskiga please haddii aad awoodaan kulli waad awoodi kartaan waa wax asaga dhan inta badan waa qaybo fara badan ku fadhiin isku daya please and please inaad xirataan oo bahalkaas aadna ka tegin Soomaali waxaan arkay ka hor imaadana aan salaamin oo dadka hay kor iska dhahdin laakiin gacmaha ayaan isku salaamin in la ilaaliyo aad iyo aad isku ilaaliyo la taxadaro taas ayaan jeclaan lahaa halka midoo kale marka boontiga ku dar lahaa wuxuu yahay cudurka sida dhaqaatiirta ay sheegeen marka uu dadka uu ku dhaco dadka horta ma kala jeclo cid kastoo ku dhici kara sidaan hore u sheegay balse waxaa jiro dad u nugul cudurka oo haddii uu ku dhaco oo meesha ugu hooseysa gaarsiin karo amaba uu dili karo sida dadka cudurada hore qabay sida dhiigkarka sokorta adii qof xataa iska liita hadaa taho cudur qabin oo laakiin difaaci jirkiisa aad u liito laga yaabaa inuu ku dili karo cudurka marka haddii nafaqa darro jirto kale jirka daciif yahay uu ku dili karaa hadaa qof waayeela tahay oo waxa la yiraahdo immune systemka ama difaaca jirka oo yaraado markii qofku waayeelka uu soo waayeeloobo waxa yaraado difaaca jirkiisa ku jiro halis aad u tahay in difaaca jirkaada markuu yaraado oo cudur ku dilo difaaca jirku muxuu yahay waa system Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray jirka oo cudurrada markay jirka ku dhacaan la dagaalamo oo iska celiyo oo fayrasyada kale iyo aad ula dagaalamo oo meel iska saaro markuu xoogan yahay marka qofka dhalinyarada uu ku jiro marka kale uu soo daciifay markuu daciifo waxa imaanaysa in cudurkii ka xoog bato marka dadka waayeelka dadka xanuunsanaya cudurrada hore qabay sida sokorta dhiigkarka maxaa la dhahay wadna xanuunka cudurrada faraha badan oo asmada neefta waxaasoo dhan dadka qabo ayuu aad iyo aad ugu daran yahay waxaa dhici karta marka dadkeena waayeelka ah haddaan waayeelka weyno waxaan weynaynaa waxgalkii ummadda maskaxda weynaynaa waxaan weynaynaa waayeelka ayaa waanada iyo wanaagu ka yimaadaa wanaagii iyo waanadii iyo waayeelnimada ayaan weynaynaa waxaa dhacayso inaan dadkeena dadka ugu khibrada badan ugu experience dheer ugu waxgalsan aan weyno inaga leedaan waxaa imaanayso in yar aan waayihii hore jiray waxba ka garanaynin ama dhalinyaraha aan wax muhiimad weyn aan sii saaraynin waxyaalo fara badan oo aad u muhiimsan ay isku soo haraan marka intaan waayeelka iyo dadka wanaagsan iyo dadka waxgalka aysan naga dhammaanin waxaan idin kula tali lahaa please walaalayaalow aan taxadirno waalidka ama dadka waaweyn ama dadka xanuunsanaya si gooni ah loo ilaaliyo yaan loo tegin inta badan inta guriga la joogtan ay iska ilaaliyaan inta guriga ku joogta xataa aad iyo aad iskaga ilaaliya saa usoo ordaysa adoo suuqa imaada hooyada ama waalid ayeeyada wixii guriga ku jooga inaad salaanta isku dayin dadkaas u nax adiga da isleeda xoogaa xoogan tahay soo nadiifi adoo kalgacal iyo farxad iyo wanaag adoo u waday oo farxad ula soo ordaya ayaa waxaa dhici karta farxadaadii kalgacaylka u waday inuu malakumood ku dhahan yahay oo cudur iyo balaayo ay ku jirto marka ha noqonin sida dhakhtar Soomaali maalidka hadda aan arkay dilaaga aan ogeyn waxa uu dilaayo please dilaaga qarsoon adiga wanaag iyo kalgacayl iyo jacayl aad u qabto qofkan ayaa laga yaabaa inaad u haagarayso inaad u salaanto inaad u marxabayso inaad ugu tagto inaad u soo booqato aad iyo aad inaad u taxadarto please aad iyo aad u taxadar qofka waalidka aad iyo aad dadka waalidka yaa loo dhawaan inta badan hala ilaaliyo
guryaha ay joogaan ha lagu ilaaliyo haddii xataa ay banaanka aadi jireen ha laisku dayo inay ka joogaan oo guryahooda ay joogaan inta cudurkan laga dhamaanayo insha allah wuu naga dhamaanayaa aad iyo aad ha loo tacadalo mida kale oo cajaa'ibta ah oo aan aad iyo aad ugu maalmo dhexe saan u malaynaa hadda in laga waanto baan dhici karto laakiin ayaan dhexdaasana arkaya qof baa cudurka u dhimanaya Soomaaliya gudaheeda familkii iyo qaraabadii qofkan qof ama la jeclaa qof kasta waa la jecel yahay ama waalid ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado dadkiisu way dadkiisu waa jecel yihiin waa lagu soo yaacaya marka waa loo imaanaa waa lasoo booqanaya qofkiiba loo imaanaa maanta intuu jiran yahay waa lasoo booqanaa waa la dul taagan yahay waa la tartaabanaa xagee ku xanuunay saan isla markaa waxaa dhici karta cudurkii markaa inuu sida ku faafo oo adigu aad qaado ka kalo ku yimid oo qaado in Allah inta markaas ka tagtay meeshaad kala tagtaan aad geysaan kuwaasi kuwa kale u sii geeyaan bulshadan ee wada xanuunsan ay soo baxdaan marka dhibaatada intaas leeg intaad horseedi lahayd qofku marka uu cudurku uu ku dhaco hay'adaha dawladda ee qaabilsan ha lagu waco ayaga ayaa rabaa inay kaagalayaan meel gooniya geeyaan qofkan intuu ka soo bogsanayo waxa la yiraahdaa karantiilka aniga arigaas karantiilka waan ka bedeli lahaa waxaan dhihi lahaa baxnaano sababtoo xitaa karantiilka Soomaalidu waxay u taqaanaa qof asaga u dhan la nacayo si gooniya loo faquuqi u taqaanaa maaha sidaas karantiilka cudurkan goonida la geynayo qofka waa baxnaano in qofka la baxnaaniyo cudurka asaga laga saaro la daaweeyo nadiif laga soo dhigo kabacdi oo bulshada u yimaado marka baxnaanada noocaas ayaa waxa la rabaa hay'adaha dawladdu inay dadka siiyaan oo meel gooni dadkaas ninka la geeyo marka labaad marka uu dhinto qofku haddii ilaahay oofsado qof muslim ahay waa loo duceeyo balse duugitaankiisa aasitaankiisa iyaan lagu soo dedegin aad iyo aad la iska ilaaliyo sababtoo waxay dhici karto adigan ku soo ordaya rabo qofka inaad duugto ayaa laga yaabaa in malakumuudka meeshaas uu ka qoraya oo adiga ku dilo berika maana haddana kuwa ku duugaya haddana ay dhintaan kuwa kale kuwa soo duugana ay ku dhintaan oo saas godka ugu hoobano waxa weeye adinku is ilaaliya qofku markuu dhinto hay'adaha dawladda ee qaabilsan oo waxa dadka protective gear wax la yiraahdo ama qalabkan ila cudurka ninka la iskaga ilaaliyo dhaqaatiirtu ay xiran yihiin iyo dadka loogu talagalay hay'adaha caafimaadka ay xiran yihiin ayay la imaanayaan ayaga duugayo si gooni u habeynayaan dharkooda wuxuu dhan waa la duugaa waxa la wixii ku qalabkii ku xanuunsan wax dhan ama waa la buufinaya waa la infectionka laga dilaa iyo dhibaatada coronavirus ama ninka la yiraahdo waa bal gubaaba dharkaas aga dhanba oo meesha ama asaga la duugaa intaas waxaa laga yaabaa xitaa dharkiisi qofkaas uu ka dhintay in la dhaho waa la sadaqeynaa dad masaakiin ah masiina dadkaas masaakiinta way iskaga baahan yihiin way qaadanayaan laakiin dhib badan ka soo gaara dhibaatada ka soo gaaraysa taasna in oo maxaa dhihi jiray aad looga taxadaro duugitaanka ha loo daayo hay'adaha dawladda haddii in case dad raacayaan oo dadku ay dhahaan qofkan ka soo wax duugayna waxaad qaadatin qalabka loogu talagalay ee cudurka looga hortagi karo sida inaad dharka qalabkan la gashto ee culus qaadataan mask aad xirataan gloves xirataan aad iyo aad u taxadirtaan markaad soo laabataana waxaas aad si nadiif ah si tartiib ah gooniinta iskaga siibtaan meel iskaga dhigtaan aad adinku maxaa la dhahay isku dadaashaan inaad jirkiina markaas nadiifisaan oo wixii laga yaabo in soo raacaan aad u nadiifisaan halka boonti aan ku darsanahay soo dhaafay wuxuu yahay afkaada iyo gacantaada inaad kala ilaaliso actually afka maahan sanka afka indhaha wajigaada adi intaas wajigaada inaad gacmahaada kala ilaaliso haddaad isku daydo oo practice garayso waad samayn kartaa aad iyo aad u samayn kartaa waana wax fudud waaye waa haddaad adigu aad qof go-aan la tahay oo inaad samayso aad ka dhabtaha waay intaa fariisatid waxaan ma samayn karaa ma samayn karaa go-aan hore ka qaado waad samaynaysaa taasna anaa ku dhahay sababtu waxay tahay aniga salaadii markaan gurigay ka baxo ilaa markii aan soo laabanayo shaqada ka soo laabanayo afkayga wejigayga iyo gacantayda isma gaaraan marka laga soo tago xilli aan weysaysanayo oo aan weyse qaadanayo xilliga aan weyse qaadanayana waa xilli aan gacmahayga shaambo iyo biyo iyo saabuun iyo saan ugu dhaqahay aan nadiifiyey on si
taxadar le u nadiifiyey markaa kabacdi ayaan ku weysaystaa intaas maahane inta kale gacantayda iyo wejigayga isma gaaraan sababto waxay tahay gacantaada ayaa ah midda cudurka soo qaadi karto ee afkaada gey karto ee sankaada gey karto ee indhahaada gey karto ee ku dili karto inaad iska ilaaliso ayaa loo baahan yahay cudurka ilaah baa keenay muslimiinta iyo gaalada inta buu ku dhacayaa walaalayaalow please inaad taxadarteen ayaa anigu inkula dadaalaya dadkii Soomaaliya waan jeclahay qofka markuu ku dhaco oo dhahaya isbitaal ma geenayno qofkeena guriga ku dabiibanayna isbitaalka uu karantiilaya asma arkayna wax camal maxaa ka dhihi dad qofka markuu xanuunka lagu arkay in isbitaal la geeyo fiican tahay bas gurigiisa in lagu karantiilo aniga ahantayda inkastoo dhaqtar aan ahayn haddana aniga waxay ila tahay qofka markuu cudurku ku dhaco ama aad ka shakisaan xanuun lagu arko calaamadihiisii xanuunkii cudurka oo lagu arko sida qufacii madax xanuunkii daalkii caajiskii markii lagu arko calaamadahaas waxaan aniga ahantayda aan aad iyo aad ugu talin lahaa in hay'adaha dowladda ee qaabilsan loo waco lambarada kale waa haysataan waddan kastoo joogtaan in la waco loona sheego waxa qofkan jiro qofka hay'addu marka ama dowladdu way qaadaysaa way baaraysaa haddii uu malaria iyo wax yaroo iska hayana waa la soo ogaanayaa hadduu cudurkii kala hayana si gooniya ayaa meel loo geynayaa si loo baxnaaniyo maaha karantiin waa la baxnaaninayaa maxaa sababta marka saas loo yeelaa maxay tahay haddaad guriga ku haysato adigii ku dilaa cudurka adigii kugu dhacaya caruurtaadii ku dhacaa wax allaale iyo wixii familka jooga ku dhacaa in allaale iyo inta famil kalaah soo booqanayso qofkii ay walaalkooda hay ee loo sheegay inuu xanuunsan yahay soo booqanayso ayuu ku dhacaya marka cudurkii inuu adiga ku dilo hooyadaa dilo aabahaa dilo walaalkaa dilo ilmahaadii dilo ehelkaadii dilo inaad malakumud aad isku celcelisaan mid u dhiibo miyay qurxan tahay ma qurxano waxa fiican qofka in la wado in la baxnaaniyo marka in la soo baxnaaniyo asaga ruuxiisa u fiicnayn inaad guriga dhaxiisa ku haysid oo maalin kasta dadkii oo cudur ku sirido ku cudur ku sirido asaga ku soo celiyaan hab dhibaatada fara badan meesha ka dhalanayso aniga waxaan dhihi lahay qaada qofkan xarumaha dowladda hala geeyo hala baaro haddii cudurkii oo lagu xaqiijiyo si gooniya loo baxnaaniyo bas daawada kulli wala siinayaa فيتامينadana u dheelitirayaan wax badan ay ka caawinayaan marka walaalayaal Soomaaliyeed dad aad u fara badan oo naga aqoon badan nagana way aragsan ay aad iyo aad barnaamijka uga hadlay haddaad dhayalsataan waad dhimanaysaan runtaan idin sheegaynaa Soomaalida waliba Soomaaliya gudaheeda joogto banaanka inta soo istaago waxaan muxuu yahay waxaan waa been war anaga waa tukanayna waa cibaadaysanayna salaad diinteena hor taagan yahay ku hay wax diinka hor taagan ma jirto bandowiyada adduunka dhanay ka jira bandowiyada iyo xayiraadaha ay dawladuhu soo rogayaan waa awaamiir fiican oo lagu yareynayo cudurka inuu faafo sababtu waa maxay cudurka qof ayaa wado qof kale u geeyo cudurku kaligiisu inta diyaar soo raaco ma tagi kara meel kale cudurkaani inta muqdisho ka tago soo qofna wadin Boorama Hargeysa Berbera Garowe Boosaaso Dhuusamareeb meel uu tagi kara ma laha adinka ayaa wadaan cudurkan aad wadaan marka waxaa la rabaa inaad laga xayiro oo xayiraadu maxay tahay inaad cudurka qofba qof u gudbin marka adiga ku haayo adiga si gooni lagu la tacaalo intuu kaaga baxay oo aadan dad kale u geeynin haddii dadkii wada jiradaan dadkii dhammaantood cudurkii qabaan malaha marka dadkii wada xanuunsan marka iyana daaweynaa yaa inta kale ka gareynaa midba maalin dhimana waa ku dhamaanayna dhibaato aan laga soo kabsan karin waayo waxaan idin dhihi lahaa walaalayaalow cudurka hal la xadido fiditaankiisa hal laga hortago waxaad uga hortagi kartaan inaad taxadirtaan dadka hortagtaan bis adinku waxyaalaha dowladdu ay sheegayso aad qaadataan bas intaasaaba idinku filan marka walaalayaalow saas hala sameeyo waan idin jecelnahay soo dhawaada mar labaad hadalkeena ku adkeyn maahan waxa weeye wanaag iyo walaalnimo iyo in aan ummadda Soomaaliya awalan yareyn aan dhowr xabo haddana maalin kasta qarax iyo xabado in boqolaal laga disho adduunyada dadka ugu yar ayaan kaminahan u maleynaa ma rabna marka totaliba inaan intaan ka badan inaga sii baxdo ama aan saan u dhamaano
waxa gacantaada ku dadaali karta adiga daafayst iska difaaci kartid Ah. inkastoo wax kasta ay qadar yihiin qadarta ma ilaawsanin midda laakiin dadaal qadarta gacalaya midda qadarta Soomaalida boqolkiiba boqol waxay yiraahdaan ma qadar baa laga hortagi karaa Ilaahay qoray qadar lagama hortagi karo yes laakiin dadaal qadarta aduu sabab ha u noqon dadaal ayaa laga rabaa haddii aad maanta aad seexato tira shaqaysan maayo wixii qadarnaa horaa loo qoray gurigan joogaya miya saaqad kusoo gelaysaa waa maya haddaad tidhaahdi diinta islaamka ee ilaahi subxana wa tacala noo soo dejiyey ilaah baa qadaray meeshay gaarayso anu waxbana faafin maayo oo gurigaad iska joogto miyay faafaysaa qof la waayo yiraahdo nabi maxamed aa ilaahay soo diray diintaana xaqa qof la waayo qof yiraahdo haddii la waayo miyay faafaysaa soo dabar go'aysaa haye waa qadar marka adigu waa qadar haddaad tiraahda ka war waxaa kale oo aad qadarta adinkoo aaminsan waa waxa ugu fiicanba adinkoo qadartii aaminsan oo ilaahay aaminsan oo yaqaano haddana taxadirkii ma ku dartaan xadiiska soo codsan soo ma ahayn war hatigaadana iska dabro ilaahayna tala saaro waxaan dadka uga fiicannahay ilaahay oo naqaanaa muslimiinaan nahay ducooyinka rasuulka calayhi salaam aan haysanaa maan ducaysano oo ducooyinkii ku ducaysano oo ilaahay tala saarano intaas gaaladu ma haystaan annagaa haysano afar sac maan ducaysano oo ilaahay barino oo kaligeen guryaha ku qanuunno oo ilaahay barino oo salaatuleel tukano oo gacmaha kor u taagno oo ducaysano gaaladu intaas ma haystaan waa uga fiicannahaba kuwa baaba ahayd waxaa dhici karta ducooyinka ilaahay qadaro oo ilaahay subxana wa tacaala noo aqbalo oo cudurkana ba ilaahay naga qaado cudurka allah naga qaado colaad iyo dagaal iyo dhibaato ay dadka ugu xun wax magaradka ah ee wuxuushiinta ay sababeen ilaa haddana jiro ayaa na baaba'shay yuusan cudur na baabi'inin mar labaad iyo cudur na baabi'inin walaalayaalo bliis waa idin jecelnahay taxadarka ayaa muhiim protection is better than cure inaad wax daaweyso waxba ka fiican marka horeba inaad ka hortagto waxa dhan tilaabooyinka aad qaadaysiin ka fiirsada waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelka farxiya vlog please hadaa nagu cusubtahay subscribe like comment and share soo dhawow hadaa hore noola joogi jirtana hadee waxaa ku maasan sidaa noola joogi jirto please subscribe hanaga ilaawin